labada qof ee qoysku ka unkamayo iyo xaqa ka dhaxeeya oo aad aragteen dadka halkaa fadhiya aabba iyo hooyaa dhalay dadka halkaa fadhiya aabba iyo hooyaa dhalay marka haddii laga hadlo la yidhaahdo xuquuqda aabbaha iyo hooyada u dhaxeeya arrin sahlan ma aha ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaasaska iyo ubadka isagaa wahaaba oo inoo hibeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa si tiir ah oo wax astura inuu xilkooda iyo waajibkooda nagu asturo baan ilaahay ka baryaynaa alla isagaa alhaadi ah inuu annaga iyo iyagaba hanuuniyo oo hagaajiyo oo toosiyo fi lxayaati intaan nool nahay oo noloshaan joogno iyo kadibba ilaahay baynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala allahuma salli calaa muxamed xaqa sawjku sawjadiisu ku leedahay haddii aan ku horeeyo alle subxaanahu wa tacaala basharka bani aadamka markuu abuuray qofka marka hore waxaa laga dhigay qof xigaal uu ku abtirsado leh waxoogaa markuu joogay oo qaangaadhay oo biyo duuliyey ayaa wax isbiday abaabul iyo qorshuu galay qoys buu samaystay xigaalkii uu haystay maxaa ku soo kordhay maxaa ku kordhay xidid baa ku soo kordhay ninkii marka wuxuu noqday nin xigaal uu ku abtirsadana leh xidid uu ku tarmana leh buu noqday wa huwa aladii khalaqa min almaa'i basharan jacalahu nasaban wa sihraa nicmada waaweyn ama nicmooyinka waaweyn ee rabbi bay ka mid tahay oo bixiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja ilaahay astaamaha iyo calaamadaha lagu garto weyninkiisa waxdaaniyadiisa xaqa ah waxaa ka mid ah in ilaahay xaasas nolosheennu ku xasisho adduunyo qaybaheeda kala duwan ilaahay inuu ina siiyey subxaanahu wa tacaala ninku marka xaq weyn buu gabadha ku leeyahay gabadhuna xaq weyn bay ku leedahay intaas wadaadada masaajidada intaa bulshadu waxyaabaha ugu badan ay ka ashtakoonayso waxaa ka mid a qoys ishaya way yar tahay usbuucii inaanay ku soo marin in dalqada lagu weydiiyo waxbaasaa dhacay maxaa inoo harsan ma ka dhammaatay saas oo kale mararka qaarkood hadda usbuucii tegey iyo usbuucii horen aada u xisaabiyey maanta abaan dib u fiirfiiriyey yacni ilaa tobaneeye wax ku dhow baan ka tiriyey waxaa igu yimi caynkaas oo kale su-aal ah qaar waxay ku odhanayaan maxaan ku idhaahdaa cayda caynkaas oo caynkaasaa ninku xaaskiisa ku tiri ma ka furantay sheekh islaantii isagu saasuu yeelay maxaa u nool kuwo waxaa la arkay aan waxba u noolayn haddana wada nool bal waxay ku wada noolyihin la garan maayo waxna uma noolo waa ka dhammaadeen waxoogaagii saddexda ahaa cid kugu biirin kartaana ma jirto walaalkaa kuguma caawin karo xarigga haddii saddexdaasi faraha ay ka baxaan qaraabada iyo tolkan isxambaarsan aad arkayso hal ninoo ku amaahin kara hal xariga ma jirto waa qorshe aan ilaahay agtiisa suuragal ka haynay shareecada daa'irtu ha u badnaato wax badan baa sababaya dadku waagii hore ninkii guursanaya tacab buu ku guursan jiray iyo maxaan ku idhaahdaa dadaal aada u badan wax ururin badan duruuftoo adag laakiin maanta faadimo iyo caasho iyo yuusuf iyo cali baa dibadda ka soo diraya isku soo dardara 2 3 4 5 kun meelaha hurdada lagu gadaa laga soo qaaday wiilkaas banjaashta sii raacaya baabuurka ka degaya moobilka dhagaha ku sitaa waa wax xaragoonaya oo aqal baa lagu soo hoynaya la islaantaas wax ka dhal si la isu calfada waa adkaanaysaa tarbiya badan oo diimeedna hadaanay jirin ilaahay quraanka kariimka wuxuu yiri ar-rijaalu qawaamuuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله رجع حق أي دمرك كلهم والله كهالله يايو الرجال قوامون على النساء رجوا وكوا تاجني بدن دمرك يأهمه هذا يحاجات كودا مصاريفته وأنا وحى إلهي كفضل لي مسؤولية دا يحل كاس وحى بحين يعني مصروف كي دقالها إيو هوشة وأنا وحى شرعه نينك مسؤول لو قد جاي الله صار كاس إلهي وحى أمانة دمر كون وناكسن ربي قود أطيعه واجبات كي يحل كي ديني ها شريعة قته رجود أنا أطيعيه وإلهي أمانة سبحانه وتعالى مالك رجع إيو عرورته إيو مسؤولية دا إيو أقلك ينفتو ضبا إلى لنا حديث كي مركب الشيخ وآخرين رسولك صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته حديث كابي داود هي بخاري ويصوصاري إمام البخاري وحقوق باب يستا باب قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وحيلا هاي رسولك سينوت الله صلى الله عليه وسلم كل جن حلبا إن صار حلبان بيننا إنه حلبان وحنون نقلنا قريها برلمان كوتشرا كليه كل جن حلبا إن ديبا يو إن صار قف كستنا حل كسارا ولا سؤاليا نينكو رير كيس حلبا كسارا ولا ويدينيا كبدا رير كيس حلبا كسارا ولا ويدينيا رسولكم مركو كهلي صلى الله عليه وآله وسلم وعدت المامي هدي أن أمري لها عد إن عدك لأسجود إلهي سكدي لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قفك الضمر وحان أمري لها إن ننكيد أسجود مركا وصوغلو أيمادو حديث كالإمام الترمذي وصوصاري صحيحة في صحيح سنة أبي داود بن ماجه لبضوا وكيا لحديثكم وحكم إذا حقوق ذا أي كل هذا وكل يعني حاس كيسة إن وحي وأمره أي أطيع ذو وحي وأمره إني أطيع ذو ما دام مسؤول كيدي وياه وحاول دليل حديث كحسين بن محسن أيا إسلام يدري سار رسول كأوتيمي صلى الله عليه وآله وسلم مراد بيلهايد حاجة دي مراد كيدي مركل لو قبطي يا رسولك وحو كيري أذات زوج أنت هذا مقف ضمره أفلق بمياتها وهير له مياتها قلت نعم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بويدي وحو كيري فأين أنت منه ننكاك حقيك جوكتا حق حرمدا خدمدا معاملك وناكسا لا دقنك في عن الكور قلت ما آلوه إلا ما عجزت عنه كما قابيو كما قابوت فلو حقا ننك يقول لي هاي وحيدي أن أودي كروايا كقابيو كعاتي سمويا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم كودي وحو كيري ننكاغا أيا جنة دي يا النار تادي أدبوا سيدا أتكديغات هذا ضفي عناتنا بارياد النقطنا جنة كوجليسا هديك لعكس إذا النار إن تكون مضت أيا سورة الله رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كاس إمام النسائي باصوصاري والحديث صحيح وحديث حسن الدرجة دي ونجيده شيخ الباني يقول لي آداب الزفاف كقصة صارية وأنا درجة هو حسن رسولك صلى الله عليه وسلم بوحى لويدي عن خير النساء دمرك قوة أوه في الرون أوه خيرك بدن بال السؤال رسولك وحي صلى الله عليه وسلم مكو تلمامي التي تطيعه إذا أمر ومدى ننك إذا يزوج كذا أطيع ذا مركأ أمره وحان كولا أمر إيو وحشيق إيو وانو إيو توقع تصالين إيو نلوشي غاب كيدي وشيقو وتصره إذا نظر حقا نسنوا حق موقالك مركا وإيغانا فرح قلينيس ودين تيدا أخلاق ديدا هذا الكيدا حرق ديدا حشوت كيدا قبل نيمة ديدا مسؤولية ديدا الله إلهي إلهي باكو أرساق نسيب بني دا أبو علوشة كلي مكو أرك كفر حيا مكو أرك
وتحفظه في نفسها وماله marka uu ka maqan yahay mar walbana nafteeda ilaalinaysa oo maalkiisa ilaalinaysa marwo afka Soomaaliga macna kalima marwa weeyaan Imam an-Nasa'i baa soo saaray xadiiskaasi waa sahih Sheikh Albani sahihadu ku keenaya 1838 waxa kamid ah xuquuqda ninku gaxaaskiisa ku leeyahay in ay janno ku helayso haddii ay zawjkeeda ateecdo رسولك صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها قفك دمر شنتي ذا صلاة هديتك وصامت شهرها بشيدنا أي صنت رمضان وحفظت فرجها حمنك ترنك يعور ذيذنا أي قاونا شوية زينية فاحشة كيرالس وأطاعت زوجها ننكيذنا أي أطيعه قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت حلو أورانيا مكلس آخر إلى أن تسودويو والتاس دي الباب الجنة ده سلام خير قبطاتها هاي ودي حقي دي من كذا قلتي كلا دورو متكادمتي كقلب الأورانيا كلا دورو أقل أيالو أورانيا وحكمت هدي أي من كذا كعاصصه طاعة هرتا لشيء إنه يكون أطيعه ووحي شرعي وحي عن شرعي هينك كما أطيعيس هدول هذا حجابني حجاب كنتور ودمركو فضلات خفيفة يدرعية خفيفة قاتانة وحنقول قروح هذا دوينه مقطع درسكو أركاي وضدكو أركا إسقاوي هدول هذا كما يليس هدي ويرى هذا هتكني صلاة كما يليس ما إسلام باطه قبلها ير ما كذا وين أتالت كذا أدوير إسلام ومتك لا تظن قون سل تكني إسكذا أدوير هذا كي يلي ميس صلاة دوي تكنيس هدي يضع حيد قبته وحصو ضلته إلى نابل كبير ورنجت شو وين ترى هذا معاهم كل هذا حيد بانو قبناه سو قبل من كذا أطيع اللي ما يري كي يلي ميسو هدي ماشي شرعي قلت الماما إن لوجت تجاه ميلا أنا هين وحكاجات دوننا كي يلي ميسو رسولك صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عندنا لقي مايو لقونا أطيع مايو وإلهي لو عاسي قروبيو سبحانه وتعالى هدي أي طاعة ننك إذا كتكتو وداعي ويدنا نار بيكون مضانيسا نار بيكون مضانيسا رسولك صلى الله عليه وسلم هبينكي لقوريسيي وعيري ورأيت أكثر أهلها النساء وحنا أركي ضدك وغفر بدن النار تكتشر ودمرك قالوا لما يا رسول الله رسولك الله يا محان وغوب بدني قال بكفرهن أبالك دعوده يا كفر جوده قيل يكفرن بالله ما إلهي بيكو كفريان مسداسا قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان رجوا قبي كأبال كدعان وحوي أزواجته ذي كأبال كدعان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط هدي إلى بشر بات حواك كاسي نقون كرئ ولي قادوا إحسان فشوس لان تهدقيس ودقالينيس مالين هدي وحكاق صوتي ورانيسا ولي وح خير إمادة دباتا كوكو قبي وقد المناعك هذا أنهم باكاتري ويضقون موياني عيدي كل ما تشوفتنا عيدي بكل ما هشيسي الكاسي كوضيسا تاسي كمضت النار تأيوه أفحمدا حنتا عيدة نعضشة مصابتك ترى لها ترى دومينتا قرشياشا إذا كبدا قرشياش سيدا أوجد با فقهاء وحي هذا قفك الدمر مركي دماتو مسكها على إسكوبة وحديث كويري إمامك استاهو نينكونا وحا اللي يري على إسكوبة وحقه مدح فقهاء مركي sheegayaan xikmadda ku jirta ilaahay baa yaqaan waxay yiraahdeen ninku khrabshada iyo mashaakilka uu sameeyo inta badan halkan uu ka fulaa qofka dumarana mashaakilkeedu inta badan ay sameeyso qaarka dambu ka fulaa
waxyaabaha xuquuqda waxaa ka mid a gabadhu ninkeeda uu ku leeyahay inay guri joog noqoto oo cagma dhiga aanay noqon aqalkeeda inay ku sugnaato idankiisa la'aantii uga bixin wax muhiima ay u baxdo haddii qofku noqdo wareeg iyo waaba tiris maqsuudkii aqalka loo keenayba ma aha xaafadda waa ka maqan tahay carruurtii waa ka maqan tahay marba meel bay ka sheekaynaysaa oo islaamay la fadhidaa waa qalad ilaahay wuxuu yidhi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaraja aljaahiliyati اluulaa walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa dibadbixi jaahiliga oo kale iska ilaaliya aqalkiina ku sugnaada fuqahaa lislaam waxay leeyihiin laa yaxilu lilmar'ati an takhruja min beyti zawjiha biduuni daruura ilaa biidnih gabadhu ninkeeda aqalkiisa kama bixi karto daruuro la'aan ka maarmi waah idankiisa la'aantii laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna suuratu dalaaqa lamarkuu ka hadlayay iyagana inaanay bixin baa la rabaa aqalkana aan laga saarin xitaa haddii la furo ay ku cidda tirsato sheekhulislaam ibnu taymiya fataawaha mujalladka 32 صفحة 281 وحين لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة شيخ الإسلام ابن تيمية وحوليه هاي ما بنانا قبضوا إني ننكيدا أقل كيسا كبحضو إذن كيسا لأنتي حدي أي كبحضو أقل كان ننكيدا إذن كيسا لأنتي ناشزة نقونيسا وأمر ديدو أي ديبدا إسلاسو تاكت عاصية إلهي كو عاصيسي أو رسولك كو عاصيسي أو فالدنبيات قشي أو عقاب مدن يسوي حدي قبضوا مركا ننكيدا إذن ويديساتو ترى والمساجد كان قبانا يايو ندوذا خير كقبتي كسعوت جامعا سو دغيسانيا انو فصحافيا هدي مركا واحد في نوع مشكله انا جيرين اذا استاذنت المراه احدكم الى المسجد فلا يمنعها اسك بخاري هدي نينكو حاسكيسا ان ويديساتو مساجد كاين قبطو ها وديدينا لكن مركا يصوب بخايسو اني عبر اسكو سو شبت لما اوغلا وليخرجنا تافلات بو نبي غير iyagoon cadarsanayn ha soo bixeen habeen baa masaajidka cishaha Abu Hurayra soo galaya waxa dhaaftay qof dumar oo cadar ka soo udgayo yaa amatallahi ayna turidiin adoonti ilaahay xagee u socotaa qaalat al masjid horadon noqo oo iska soo mayd cadarkan iyo waxa kan hadaad masaajidka soo aadayso marka suuq iyo waxbarasho iyo ganacsi iyo masaajid mar haday aqalkeeda ka soo baxayso ma ogola lama ogola inay soo maxaan ku udugsato waxa kamid xuquuqda ninkeedu ku leeyahay an tutiicahu ida daa ila alfiraash hadii uu u baahdo xaaskiisa oo u yeedho in ay ajiibto ateecdo weey ida daa ar-rajulu zawjatahu li haajatihi faltatihi ninku haduu xaaskiisa u yeedho yiraahdo iblaayo kaalay maxaan ku baahnahay iyaga isaf yaqansay isugu baaqayaane usaa yiraahdo wa ina u timaada wa in kaanat ala tanuri iska daa inay wax kale shaqo hayso xitaa haday foornada wax ku dubayso ama ay la xooxdi dubayso ama dherigi karinayso ama shaahi karinayso intay kala habayso ha u timaado ninkeeda xaajadiisa ha u gudbo حديث كاسي وحديث ترمذي النسائي وحديث حسن صحيح إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه نينكو أدو حاسكي سقوشي سأقو يردو فأبت أن تجيء وأيدي دين يتماضو لعنتها الملائكة حتى تصبح ملائكة وين نعض ليس إلى أي واجب أبريو محاد نينكاقي أدي دين نعض لك وقود عضيه بأورانيسا هرين سهلان مركا معه هرين سهلان معه وميلها أي دمركو ragga kula dagaalamaan warqada isii iyo gogasha waa ku diiday ku dhihi mayso laakiin banaanka lagu marinaya oo de waxa way hada diyaar ma ahi
waxaan ku yiraahdaa waa siday waa iska caajisaysan waa hawshaysan naga daai waxaas khaasatan ninku haduu dhalin yahay xaas kelinayna qabo xubaanta shariicadu baa in la isku guto xaajada labada qof waxaan inay shahwadooda isku gutaan isku dhowrsadaan baa loo baahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam gabar baa usoo ashtakootay sida imaam al-hakim kitaabkiisa al-mustadrak uu ku keenay حتى رسولك إلهي ونك يجا صدق قضب بنك جاش تكوني قضب ككواد قرآن كوحكم إذا مر كان أخري وإدلاء قضب كلابادنا هدي أن صوم الصوم كويجا شبيه قضب كصدحادنا ونين هردوينو صلاة الصبح قوس بنك تاجنا وكعين كرلين كاس صلاة الصبح قوس بنك تاجنا نكي بالله بالورن بالي رسولك إلهي ندل يرى عن دوان وجورسد gabadhaasi waxba iima sheegto barqadii baan soo guriyo noqday markaan u baahdo waan soomanay bay tiraa soon sunna annaka ma dhageystay waa jiira kama dhageysto qodobka labaad quraanka in yar baan ka aqaanaa 10 jeer baan ku irnaa way inta ii daana aqaanay way ii deen weey si kasta ula hadlo de marka way dhangadeeyaa de ii deen weey qodobka saddexaad ninkani reer hurdo weyn baanu ka dhalanay iskaya inaan u kacna mooyee cidibana ma toosin karto nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam marka aad toosto tuko salaada qof dumar oo ilaahay aakhira rumaysan ninkeeda oo jooga soon sunna inay soonto ma banaana inay wargeliso idankiisa mooyaan habeenkii marka ha wargeliso inaan soomaan doonayaa suxuurtii aan diyaarsada dhagiisa ku dhacdo oo hadhoon caadi ha u sheegto oo ka warqabaya de marka moogto afro iyo waxba ugu talagalayaa qara iyo biyo inuu soo qaada dhici karto maalintii baan hungureen waa ni xal la wargeliyay marka shariicadu meel adag bay dhigtay in la ilaaliyo way waxa kamida dhaqankayna inagu aqoon oo ninka xaqiisa kamida inaanay aqalkiisa u fasixin cid uu isagu raali ka yahay mooyaan waxa laga yaabaa ninkii aqalka fadhiya in albaabka la soo gargara waa kuma waa hebel soo gal bay iska leedahay inuu ninku raali ka yahay ninkan inuu soo gala aqalkii in kale isma weydiinay waa sharciga ninku aqalkiisa cid aanu raali u ahayn xaaska uma fasixi karto cidii ay og tahay inuu raali ka yahay way u fasaxi kartaa hadaa isagoo ka maqan aduu yimaado way soo dhaweyn kartaa gogol waa u dhigi kartaa waa waraabin kartaa waxna waa siin kartaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiidka saxiixa ah khudbadiisii dheerayd la ta'dhanu al-mar'a fi bayti zawjiha qofka dumara ma fasaxdo ninkeeda aqalkiisa wa huwa shaahidun illa bi idnihi isagoo jooga idankiisa la'aanti fi sahih muslim iyo tirmidhi ibn majah irwaaguna albani ku soo saaray wa inna lakum alayhinna alla yutina furushakum ahadan takrahunahu wa inanay dumarku gogashiina ku fariisin cid aydinaan idinku ogolayn oo raali ka ahayn arintaasi marka iyaduna waa sida waxa kamida xuquuqda gabadhu ninkeeda uu ku leeyahay maalkiisa inaanay ka bixin wuxuu isagu idma mooyaane rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisi la tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idni zawjiha gabadhu kama bixin karto aqalka ninkeeda wuxuu isagu og yahay mooyaane abu daawud xadiiska soo saaray iyo tirmidhi ibn majah waana xadiis darajadiisu ay xasan tahay marka de wixii sadaqa oo de macruuf ah curfiga wal isla garanaya laakiin in aqalka markuu yimaado ninkii uu yiraahdo meeshii sariirtu taale sariir ma taalo oo maxaa dhacay nin aan qaraabanay ba guursado sariir buu baahdo sariirta baan hara ku iri maanta haye oo gogoshii uu tiraahdo waa bixisay wax oo dhan de sax maaha waxaas wixii macruuf oo isla garanaya curfi amooyaane aqalka la'aantiisa wixii idankiisa la'aantii ma bixin karto waa inay u qumtaa gabadhu adeega ninkeeda iyo khidmadda awlaadiisa ay u adeegayso taasina waxay ka unkamaysaa hooyada iyo aabuhu inay gabadha tarbiyad soo siiyaan marka hore haddii inantii waagu markuu bariyo subaxii la yiraahdo orod hooyo malcaamadii aad oo islaantii la xooxdi iyo shaahid diyaariso oo markay soo gasho la yiraahdo quraaco hooyo la xooxdi inta sixniga loogu rido iyo shaahiyo wixii ku darsato oo ay tagto iskuulkii aado oo islaantu qadadii isku sii shubtoo diyaariso
oo hadhow duurka ay timaado qadadiyo karsano ay cunto oo intay maqan tahay maryaha la sii maydho oo maryihiyo ay arato la sii maydhay oo dad yow kale guriga joogay wixii la kaakaawidayo shaahna may soo karin cuntana may samaynin waa weynaatay 20 madaxa gelisay waa dhaaftay waa la guursaday hadhow aqal bay ku wareegtay maxaa ka dambeeyay marka waay ila nin baa guursanaya gabadhii waa inaan shaah maanto dhan aan bislaanayn ama isla gubanaya la wadwado waa in la xoox la kariyo waxaan ku raahdaa hareerahana ka qayrin dhexdana ka gubatay waa in bariis isku dhex kariso biyo hilib isku dhex ordayaan waa la kariyaa mushkilad way mugti nin baa waxaan ku yiri aad u qurux badan oo aan saaxiib ahayn qurux badnaan ku wareedhe uniyo guurkii waa kaaga daray waa baabaaday maxaa kugu dhacay mid xanuunsatay mise waa isdadajis markaas uu wareer war ma hayside waxa ay u yimid xoogaa farsamadii xaafadda wax ka yara si noqdeen cunto xumaasa ay gashay kharash aan dheel wax kaga cunana ma hayo marka maalinta dadaan ku wareeriniyo waxa labadan shay iskama badashide waa sidee war mariyihii kale waa gubteen bir war ma hays kaawiyad baa la tagtay marka intan marka la meedho gabadha anaa ku yiraahna iska daana kaawidaysanay waxaan islay labadan ay ka raac mushkilad moogta marka gabadhu eed male xaafadiiba eedda iska leh waa in loo diyaariyaa xil hooyanimo iyo qoys inay qaadi karto qaybihiisa kala duwan in loo diyaariyaa hooyada arrintaasi marka wax weyn bay ka taraysaa hadhow marka gabadhii xilka way qaadi karaysaa waa gabar ka socon karaysa haddii kale hadhow mushkilad baa imaanaysa arrintii islaam bay waxay ka sheegeen gabar raja oo ay haysayo walaasheed miya talow dhashay ba aqalka oo dhan u dirtaa hawshiisa wax maydhista wax karista wax kasta kuweedana waxay tiraa fadhiga ku cuna ku caba na soo si gabdhaha cuntada waa la waaweynaada qoftanna hooyay noqotay hooyo rasmi ah qolyahanna uma bilownaba hadhow waa gabdhihii la guursaday tiina waa la qabaa kuwiina waa la soo furay لأن ده أقل كي هو كمان نقول كرتو كبدي أرنتو قويس كوا بلارن تاه كبدي مركا يدو إسلام أقدر نو ما أنا مودي يبغى لقى شيء إن يصير نقول اسم الله هنا وحترتي بيست يدو واحد هاوش يقولي قردن دوشة كجريت لكن حكى صوب حي إن كوا يدينا وحبك جرام وين كوانا قبلنا عين نقطة قبل وحكرناس رسولك صلى الله عليه وسلم فاطمة أتيمي حتى رسول كلا يو على سيلو بيودا من يودبر كاس سبحان الرؤوس وقاضي قربها سوا بحين أنك عماه يجي وادرك تسان الشقينية وحورد قية وحشيدي خادم بان دم ربا إن لكعاويو مركي صبي جايو أسراق الله كانوا إن لكعاويو رسولك صلى الله عليه وسلم حين ما يدين شيء واحد كخير بدن ما يدين تصاع أرنت أدي ويديسين هذا خادم ما هي مكان رسولك markaad aqalka tagtaan oo habeenkii jiifsanaysaan oo daaldantihiin 3 jeer subhanallah 3 jeer alhamdulillah 4 jeer allahu akbar adkaarta akhriya adkaartaasi wax weyn ka tahay qofku xitaa haduu maalintii shaqo adag ka shaqeeyo oo habeenkii markuu seexanayo si akhriyo isagoo firfircoon oo nashaad u kacaya hadhow sidiiba ay yeeleen oo ay akhriyeen mar damba rasuulku siiyay khaadim salawaatullaahi wasalaamu alayhi أسماء بنت أبي بكر وحيلادة هاي ونخد مين شري عبد الزبير بن العوام إيو دابدي سبا وان عالفين شري أقل كان كشقين شري بيرتان آدي شري لفها تمرتا إيا تمرتا دادتان سو قري شري فرس كيسان عالفين شري أقل كان كشقين شري بيهان سو داري شري هو يضوين أقل كده هو يأديغيسا وشقين إيسا وإني نقطة جابر بن عبد الله مركو قرسري يا رسولك يري موعد قرستي عرمل مسوعد قرستي قبل مسينن بعد قرستي أيا وحو يا رسولك لا وحن قرستي عرمل محاد إنن قرسن ويدي وحن قرسن ويدي برسولك لا يا أبا هاي هبلو كدنت سقال هدي أنا وكانوا مد يجا لمدا أو أنا أفق وإسكو ريريان مد مركا دقن كقويس كيمام كيس تقانه وعملا قرسته هو يدقماتيا سيقبلها تيمها وقش قيسو وضوضه سأل قبل ميل يسوق كان أري ميل سهلا معها عقبة أنت مسؤولية عادية هاي ودود كده هي معاك كنا مام الكودة يقول شهودة رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أماني دمر كقريشات إن أي قيمة ديراد ليهين
خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش دمر قاديد فوله وحا ugu khayr badan dumarka quraysheed caruurta u naxariis badan u koolkoolin badan u raxmad iyo lutfi badan ilmahooda haddii agoonnimo ay ku mutaystaan oo ay ku soo koriyaan guurkayba uga tagaanoo ilmaha siduu u kori lahaa raggoodana xagga dhaqaalaha iyo jeebkana iyagaa u fiican oo dhaqaalaha u ilaalin badan mar qofka dumarihii waxay mas-uul ka tahay maalka ninkeeda mas-uul bay ka tahay inay ilaaliso wixii iyada ku beegan mas-uul bay ka tahay raaciyad weeyaan sida raajixa masalada marka khidmadda guriga ee qofka dumarihii waa in ay ninkeeda ubadkeeda aqalkeeda hooyo u noqotaa waa inay ilaalisaa maxaan ku idhaahdaa شرفت إيا أولاد إيا عرضك إيا وحودا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله نفتي ذي حفظيسا أولادي أقلكي مالكي بحفظيسا وحكم إذا حقوق ذا إني ننكي إذا هاد نقضه إني هاد نقضه إيادو رير لتشوك ترير كودي وأن مروان ميل دقان أهين با إلهي أكيني ننكا سألك أرزاقي هو يدن وأقل كسوشي دا أو ترنتي oo dad iyo duunyaba maanta aqal meel degan oo muslimku ku xisaabtamayo iyo xigaalka iyo sokeeyuhu ayay noqotay macaashirada wanaagsan iyo dhaqaalaha iyo nolosha wayna ninkeeda u mahad celisaa khayr allah ku sii wayna tiraado u mahad celisaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam la yanzuru allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha ilahay ilna xariis lakuma eego maalinta aakhiro qofka dumara ee marwada ah ee ninkeeda wanaaga uu gelayo أنو مهد نقين وهي لا تستغني عنه يدو آن كمارمي كرينين ومعان كنا مصاريفتي يا بيلكي يا مسؤوليتي يا وضوتكي يا نرشي يا وحول بعد الله وهيو إمام الناس إبا صاري سنة كيسوا صحيح مركا شكري عرب ككلية ما عرب ككلية ولا يسكير هذا كلية ما مقصودك وحوية فرحات هذا الوناكسن نرول راحله مامول في عن dhaqaalayn wanaagsan ka warqabid arrimihiisa ay u qunto waxaasoo dhan weeyaan waxaa ka mid a xaqa ay ninkeeda ku leeyahay an tatazayana lah ninkeeda inay isu qurxiso oo u xaragooto oo u labisato ayaa ka mid ah innaga waxaa dhexdeena laga helayaa qoysas ama dadyow gabadhu kabadhka iyo boorsooyinka dhar baa uga buuxa markay aroos aadayso ama cid soo booqanayso ama cid u imanayso bay xaragoonaysaa qaarkood dumarka inta kale dircishiidka ahaa ee jikada ay guriga kaga shaqaynaysay wadataa gelin hor iyo gelin dambe shiidkaas ay xiran tahay ka maxaa dharkan kale ee quruxda badan ee khawaaska ah maba xidhanaysaba mar dhifa wax laga yaabaa inay xidhato oo goor dambe oo xitaa maaragtay intuu yimi iska daalan yahayba waa laga yaabaa inay xidhato markaasna waxaa dhici karta inay su-aal ka timaado teeda dharka maba eegaysid miya waa ku siday miya aniga lagu labisnayn dee sideeda mas-uuliyaddani waa niyadda iyo xilka adiga ku saaran waxaa la rabaa marka ninka xaq buu kugu leeyahay caruurtu xaq bay kugu leedahay aqalka mas-uuliyad baa kaa saaran waa inaad ku dadaashaa ninkaaga isu qurxisaa oo aad ku dadaashaa oo aad wixii aad haysato oo dahab iyo wax la mida iyo xinnaha iyo nadaafadda iyo labiska waa inaad aad u qurxisaa uu ku daawadaa oo horta bal maalmo meel kale inuu u warwareego ka ilaali haddii laakiin adigu aad dirici shiidka ahaa iyo waxaa ku meermeeraysanayso dee ninkii wuxuu maqlayaa faarax baa guursaday yuusuf baa guursaday jaac baa guursaday guursuu isdhahayaa isagana soo maaha dee ile islaan ka hor xaragoonaysaan jirin moogtahay laakiin wuxuu isleeyahay marka hore war nimankaasi bal horta waa yaro degdegayaan anigu taydaaba igu filanoo tiisi baa u muuqanayso labisanoo dee qurux badan moogtahay marka labisku waa farsamo gabdhuhu ragga ay ku hanin karaan labiska iyo maaragta arrintaas innaga soomaalida waa laynoo ka maxaan ku idhaahdaa jajaban yahay dadyaga kale caalamka inoo ka jajaban way adag tahay qofka ama qoyska soomaaliyeed gabadhu marka ninkeedu soo noqdo inay tiraahdo maasha allah waa kugu farxay adoo caafimaad qaba ilaahay ii kaasoo nabad celiyey niyadda inay ka dhahda waa jecesha afka ma dhihi karto waa adeeg ku jira markuu baxayana ilaahay noo kaasoo nabad celiyo
وحناكسن الله كوب بيجو تشنكيا إنسي الله كاشرت وده كايلاليو صون نبض نقو أنو يادي قو نبضه إن ترادو إلى الباب كوسي دويس وأدكته حلقة بدي يسوق سناه ده صوح ده الباب ورس كسروا على الحدا يعني يلا ولا مارت إن لو كنت ومش بعد عكرت مركز ده واسكتشوق موقت بس كيرت شوق مركز ضد كان دم هذا عصر جاء ضد كان هذا مارت عصر جاء هذا كم مرة يداد نوي معنا ويروي نادي لكن عصر جوا دعي كرتا إن يحوجا يجون نجاي البحسينين لكن واهرين ماشي كم مقام وحكم إذا آدابته أما وحنك وجد وحيابها مهم كأ جوادو نينك إذا إني سقر حصو أي تهاي رسولكم مركو تلمامي فإن خير النساء من تسرك إذا نظرت دمرك وحقو خير بدن مدة أمرك هذا يكتو هتكفر حيث وحكم إذا أخلاق ذا وناكسن أما وحنوش إذا حق نينك إذا كلية حدا نينك كتشيب رون تهاي اللي الدنيا دوا أسكا قفن بهاي حدا كتشيب رون تهاي oo ama iyadu wax ganacsi ah haysato ama reer ladan ku tiirsan tahay inaanay ku galad iyo abaal ninkii sheegan oo ina war anaga bariiska ku siina maxaan ugu hadlaysaa maxaad haysataaniyo adiga reerkiina waxa ma haysataan daga hadal inay xiniyaha kaga saarto ninkii marka in aan ku abaal ka sheegan yaa ayyuhalladina aamanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adaa sadaqaadki bixintii waxyaabaha buriyo waxa kamida abaal sheegadka kamida oo aan gabadha ninkii ku abaal sheeganin oo ay fahanto waxay wax siinayso nafteedii inay tahay oo ceebteedii asturayso oo ninkeedii iyo caruurtii iyo wax la siiyo wax ka wanaagsan inaanay jirin waxa kamida xaqa uu zawjku gabadha ku leeyahay an tarda bil yasir wa taqna'a bih wala tukallifuhu fawqa taqati in gabadhu ninka jeebkiisa ay ku xisaabtanto oo wax yar uu haysta raali ku noqoto oo maxaan ku yiraahdaa aanay ku kalifin waxaanu awoodin ayna ku qanacdo oo aanay cid kale iyo noloshooda u hanqal taagin oo gabadhii aanay oran heblaayo laba qasaaladood bay haysataa barkadna waa u dhisantay taangina waa u dheeriyahay heblaayo laba duman oo shaqaala u shaqeeya heblaayo caana boorana way soo qaadataa caana geelna waa loo shubaa naa heblaayada inaga isku baab ahba innagu aqalkeeniyo qoyskeena ilaahay wuxuu ina siiyay waynu ku wada noolaanayna reerkaasina wuxuu Allah u barakeey innagana wixii aynu haysanana alxamdulillah wixii ina ka dhimanna was'alullaha min fadli ilaahay baynu weydiisanaynaa reeraha ina ka daa marka noloshii aqalkeedu waxay ku miisaaman tahay nolol aqal kale aqalkaasi guuraamadagu noqonaya marka ila waa nolol reerkan oo nolol kale ku miisaaman weeye miisaan reer kale u saaran yahay miisaan reer kale saaran adiga ma ku dhaxan tiri karaysa waa khilaaf iyo dood taagan iyo maslaxad iyo sidan ma aha iyo in been la isu sheego iyo in la isqanqanciyo iyo in la kala warwareego waxa soo dhan weey mushkilad marka cadiima weeyaan oo aan haboonayn waqtiga waay ilaahay wuxuu yiri subhanahu isagoo arinta ka hadlaya liyunfiq du sa'ati min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وحالة الماما يا قف ولبا سيدا وحوها يستنوحوا بحيه وريركي يسأونه ولا يستو قفكي حقات شيبكو كأدقيه وحالته كوا حيسان تهينا دي وحي إتالكي سإلهي سيينو بحيه wixii culeysay jirina ilaahay baa saxiir doona hawshu afudaan doonta gabadhu inaanay samaynin ninkeeda wax dhibaya qowl iyo ficilba wax ka cadhaysiinaya inaanay samaynin nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay inuu yiri la tudi imra'atun zawjuha fi dunya qof dumar ma dhibto ninkeeda dunida la noole qaba illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain حاسكيس حور العين تأه فوحي أورانيس لا تؤذيه قاتلك الله هدبين إلهي كدقالي هدبين فإنما هو دخيل عندك أي ضيف مرتب أكتادك يهي يوشك أن يفارقك إلينا وقت دوغا ونوغا كائمانا ياي هدبين الدا ابن ماجه وعديسك صوصار وحكم إذا إني معاملة وناتشيسو isaga muaamaladiisa marka laga yimaado waalidkiisa iyo qaraabadiisa abihi hooyadii dumaashideed
معان كورا هذا سيدي معان كورا هذا قبض معان كورا ولا شيسة وما إلى ذلك ضدك إهلك إنها جاتشوا وشي فرفورا إيه معان كورا مد بكال لو كيني كرا مد بحبرش الله كينا جوري إيمان كرا وضدكم مين ودقين هاي ويسكن نوله ولا على ضدكم قار مي يشوفون إنكم ككيني كرا قاربا أنت جيري كل عضو عهور تلقيبين كرا والد كيو معان كورا جابوبا ينعيد كلا لوه ينبال كيني كرا إن قبضوا أي وقاتو نينكن قبا نولش لو وداغيسو dadkani inay yihiin dad noloshiisii qayb kamida ah inay yihiin oo sodoh iyo sodog iyo xidid iyo xigaalba ay gabadhi ilaaliso waxa kamid ah xaqan ninku ku leeyahay inay ku dadaasho ninkeeda inay nolol wanaagsan kula noolaato markay guursanaysaba nolosha ninka ay kula noolaanayso geeri oo idin kala kaxaysa mooyaane ninka aqalkiisa ha ka soo bixin go'aanka weyn ay ku soo baxdaa لكن هذا يسلده بل فيري نكاني ملنا نولان كرتا بل سند فيري سند وقدر هديك له هذا الساس أي فرد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن أقل كاكوت لقى شو إن أنا كسر بحين غيري إن لقى كسر صار مويان إن أنا كسر بحين قوان كائن قاعدة تقبل ونين كذا فرين أنا ويديسن ماشي محاكم بحياة فرينكي وماشي كبحياة هدي اللي يصير رقب تبع ورقد يسيب ليس ورقد يسي دمر بقار عادة ساوتها dadku waa wada hadli karaa waa la isira qaban karaa oo oran mayno sida Soomaalidu ay tiraahdo nin iyo xaaskii colna ma aha nabadna ma aha waxaas waa khalad dad colna ahay nabadna ahay miyaa wada noolba waa balaaye waxa dadka ninkii xaaskiisu waa dad wanaagsan oo dadka isugu jecel oo isugu dhow oo khiyaar ah waa la ismaan dhaafi karaa laakiin furiinka waa inaanu meesha iman sida isagu haddii la isqabto aanay sax ahayn inuu yiraahdo nawaaska kaafurayaaba وأنا يدو أوران ورغدا يدسي أو يفر أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة قف كستو دمرة ونين كذا طلاق يفرين ويدي ستا لبلان شنذا وتقول كذا وكحرام بالنبي صلى الله عليه وسلم شنقل يميسو ترمذي الناس أبو داود بن ماجه بعد إسكا وحشرعه جارسي سحيتها وقفك كلية ee gabadha wax la wadaaga ee hadii uu dhinto ay shariicadu gaarsiisay in maxaan ku yiraahdaa ay isu basaasiso 4 bilood iyo 10 cisho isu basaasiso waqtiga way soo ururay midhiya laba aan ku daro xaq gabadhu ninkeeda ku leedahay maadaama waqtigu iska soo ururay gabadhu ninkeeda xaq ay ku leedahay nolol wanaagsan inuu kula noodaa la rabaa nolosha wanaagsan maxaynu uga jeednaa عيد الله صاحبه ومال كل نولاده وحاسكن وقبه وإلهي ويري درب بعد سوتهين يهو بعد سوتهين هذا دم توي كمايدي كرتا هذا محن كويدا هذا نوش هاينا واد مايدي كرتا وأنا قفك كلية شريعته كو أوجش هاي إن السورية كو هذا مايدان كرتا يدين كو قاقاون شريعته هركاسي جارسيس قف سيكين دوي متشرو قف سيكين دوي متشرو حن عصوصتي BBC ده مالي مد وحال ويدي maxaa ninka iyo xaaskiisu markay isqabaan muddo isugu ekaadaan baa leeyahay way isu ekaadaane ninka iyo xaaskiisu maxay isugu ekaadaan markaas wuxuu yiri nin qaybaha arrimaha diinta u qaabilsano wuxuu wani wax kala garan maayo kulli quraanka waxaan ku arkay aayad ilaahay uu leeyahay qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalida kulli wadad isku milmayo dhigooda ee dhacaankooda isku baxayo waa dhici kartaa uu yiri hadii xitaa ma aragtay سؤال شوي كان لكن شريعة بدت المامس وتفاسير تأيه قرآن كي إلهي بابا تلمام يو سبحانه وتعالى وضد اسكم الميبة إلهي لي بركود بركة كلا اسكب بحي سيدا أوجد باقبردو ننكي دا سوى عن نولونا لدوا كو لبو دبتا وحي دبو أفي أدنا إنو كإلالي سدح حقوق دا أي كل هذا هاي وإنا نكمر ميرين اللجوية يمرمرين يضيع وإنا نقصمين وأفر وإنه أموتشيا فرحد يفرفرنان يفيوبي إنه أموتشيا قبدي شن وإنه أصبرا وحدبه كجا إيمانية ومحنكو هذا التسامح يعفي أوصمية مشكلة دا قويساسك إن بدن دوميني سهدا وحا كميدا مكادو فيرسطو نينكو دلين يرادا أهي قار كود موبيلا لداوانيا داد فنانين أما فيلمان تدقى ورواية ده دقى مجرمين قال أما فساق
ayaa la daawanaya oo timihii qaawan oo wajigii wax ismariyay oo wajiga muuqda mid kale dul saaran yahay on qofkiiba ahayn taasaa marka habeenkii iyo maalintii buu daawanaya gabadh taa la mid ah buu rabaayo raadinayaayo sawirkeeda caloosha ugu jiraa gabadhaasna goormuu arkaa iyadoo war akhrinaysa iyadoo filin matalaysa ayuu arkaa iyadoo hurdo ka soo kacday iyadoo xanuunsanaysa iyadoo maxaan ku raahdaa si u dayacan ma arag waa qof kaamirada lala dul joogo lacag laga dhalinayo hadhow markuu guursado oo gurigii gabadhii timaado tii calooshiisa ku jirtay ku sawirnayd iyo tii guriga isqaban waayay iyadoo hurdo ka soo kacday oo si u jajaban buu arkayaa inuu maxaa ka siyaabo isleeyahay ilaa mid baa calooshiisa ku jirto ku sawir qaadanaya iyadoo xanuunsan oo meel jiifto arkaya mid xanuunsan ma arki jirin de ilaa waxaana calooshiisa ku jiray iyadoo wuxuu arkayaa wax ka yara siihiin reerkii markaasuu xaraas iyo dagaal iyo wareer kala tag wey dhalinyaradu wax weyn arrimaha waxa dumiya qoysaska waa ka mid waxa dumiya waxa ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah in dumarka khayr loo dardaarmo istawsuu binnisaa'i khayra dumarka khayr u dardaarma culimada waxay ku micneeyeen dumarka khayr u sheega markastoo alla kulantaa ragow markaad idinku isu timaadaanna qaarkiin qaarka kale golayaashaad isugu timaadaan isu dardaarmo sheekooyinkiinu ha ka mid noqoto in dumarka loo ixsaan falo loo sameeyo waxaa rasuulku sheegay feedh qalloocan in laga abuuray isweydii feedh qalloocan baa laga abuuray qof wax qallooc laga abuuray sidee ula noolaanaysaa haddaad toosiso waa jebinaysaa oo wax weeye waa furiin waa inaad iska kabkabataa kabkabo qalqaloocaa ku wado hadba doco u dhigmi karo u dhig hadba docdu kuugu dhigmi karo u dhig waa inaad haddii aad si u hadashid si kale ina u hadashaa dhici karta hala sii wadwadi wax badan ha u fiirsanin arrimaheeda hadal kastoo ay tiraahdo haddii aad ka daba tiraahdo waa mushkilad inaad la garnaqsato sida laba nin u garnaqsataan ha ka yeelin ha barin arrintaas waa isku afbaranaysaan wax idiin taagelaya ma jirto haddaa hadhow xitaa isqabataan oo muslim idin soo dhex galo ilaa dad yooyaatin bartay baa tihiine idinkaa isku booday isgelaya wax idin kala qaban karaa ma jiraan waa inaad iska ilaalisaa marka la garnaqsigeeda soo fadhiiso heblaayo maxaa saa u samaysa maxaa u samaysa maxaa kaa u samaysa adba kaasaa samaysa adba kaasaa samaysa waa meel lagu kala gurtay meeshan waa inaad tawjiiha iyo tusaalaha iyo oday baa tahay heer maamulaya saa wax u dhaqdi baa laga raba taasaa muhiim ah waxaa ka mid ah si wanaagsan inaa ula noolaad walahunna mithlu ladii calayhinna bilmacruuf dumarku waxay leeyihiin waxa lagu leeyahay si macruufa shareecadu tilmaantay mid la mid ah khayrukum liahlih ninka idinku fiican idinku gobaysan waa ninka reerkiisa ugu fiican wa ana khayrukum liahlih aniga ana reerkayga idinku fiican buu nabigu sallallahu alayhi wasallam taa micnaheedu waxa weeye sida xadiiska loo tilmaamay al-ihsaan ila al-mar'ah min kamaal al-iimaan dumarka loo ihsaan faliyo qofka dumar ee xaaskaaga iimaankayba ka mid akmalu al-mu'miniina iimaanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaarukum linisaa'ihim من الإسلامتي سكعبنا يسمر كستا ميا إيمانك سكاملية وضعيف إسكتر إنا نقطة نين شعوط وأنقفك دمر فهم كرين نين قيلب بدن نين عبات بدن نين قد قضاء وأنت أن كده ماني ديكسي يتشكد إسلامتا يبركد أن كده ماني إنا نقطة إسكايلان مسؤول باتهاي إلهي حلبك صاري نفقة يبيلك يكسوة يسكنة إنا كدداشت لينفق ذو ساعة من ساعته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ننكي لوح لورد علي مسؤول كها حلكا ساسارة الربحين ينولل يدقالة يرهركي حلكا سأدوك السبية ومسألة رجع بدن كي سمان تكمقن نبا صوك عيا وعافي ما تغبا ما أقول إنه شقي وصوك عيا ما شقينا هيركي ومحمالي محمد قبلني ضدك وديعي إسلامتي با حبضيا يا ملكو قريسة هيلي بيربي ملكو وحينيسة خضار يربي ملة فريدا يسقي انتو سولة بيستو وبرقدي صوتو صوق راعدو يمقاحيا كشاكينيا قر إيه حاج شنقلي يا بوليه أقل كينا وفنش الكنحة ورقرت إيه حاج كذا بالوقت ده بالله هنا قارسية هل كان قرك عقباني حاج إسلامتي هذا كفريسي سوقه مسؤولية دي حلكي قدو قارب لقيا بيني بالود كل ديبان وكل دقا لمان oo ay waxaan ugu yimaadaan meeshii lacageen
وبالود ورب وكل دقال لما دعي كرت ومشكلة ده جري كم يتح هي مسؤولية الآن مركاسا مركا لا هضلو أما وحلو يدي وحولي هيرك إسلام تأطرس إسلام توريستا ما قال لنا مركو تشوغان وحولي أنيق وحاني أوديك هيرك أنا أقل كما قاعد يقول تكتدو أهين ويديسد هيرك إسلام بأطرس ووقت يدومر كتلين شريني وحان كل إسلام تهلا وريستو كلي والله بشخصي بكلي وضدني محمد كميت رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري ما حق زوجة أحدنا عليه مركي لو يديي وما حي حق نين كان نجم إذا حاس كيس كل هذا هاي أن تطعمها إذا طعمت إن تقودي صو مركاد عديك قوضا نيس معناه إذا ما همك سوق كوب شاه كعبتي كوب شاه بارسل أوقات ما هذا معناه ساس أما العقد بيا ملك يبستي إذا لم يقعد وقولي أوجي ما وحلو قد شيء ذا يعني يدعين إناد وحنتيد وديركتيد يدنا أي قاتشونيس يعني يدعين إناد أرد بحضه يدنا أي أردنته يعني يدعين إناد كبحرنته يدنا أي كبلانته يعني يدعين إناد ملو عن سيحته وحو عن يدنا ملو عن أنا سيحن إسكائلالي وحاصل دمويا رسولك صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي دمركو أكتادا نيه وحيكويهين وسيدا أسيرات محبوس ويقفك أكتادا فرديوكال هريركودي ولا الذي ميل كستا أضي كاسو راعي كعنتا تسوق بسط أقل أقول استيام ميت كراء بات كنت أب لما تشوفه هويا لما شوفته ولا لما تشوفه إلهي كسكو أذاك مسؤوله وحلو به كور قبط قفك عين كاسو كلا وآذن عديبين أو دباتين أو شريعة ماشي لكتي أدوغات وآذ حرقا كوهيستي دقالين تيسي أباهنت بحي إلهي كسي وحكسي وحيادن أبوذنا إلهي كما صارين سبحانه وتعالى عرفي قام بالو تحقيل لي يقفكو دقاليس وحو يهي إيا وحو هلي كرو ترال وناكسن إيا وحو باهنتهاي كوانرتن وحو باهنتهاي إن دمركي ننكو لعويو رقو وحو كعوين يا مقاحيها قبدي مقاحيدو فردين يا بناها دعا دركت ما أنتو دان قاربا مقاحيها فردين كورد يال كدو دوبانو ما أنتو دان سياسة بالغا شكيني أما قبائل بالغا شكيني أما صناديق يا دوروشين بالغا شكيني مربا halkaasoo koob shaaho bigeys iyo cadeys ku dhufanaya koob iyo 10 habeenimo ka kacaya bal way noo berito wax caawa laga sheekeeyay ma jirto islaanti iyo caruurti iyo waqtigi habeen barkaas guriga tagaya markaasa dadkiyo demaanto dhan si ula daala dhacaysa caruurti dhacday ayuu habeen barkaas ku garaacaya oo wax weydiinaya iyadoo huruda xagaa dhigtay shaahi furihi xagaa dhigtay weelka ma aragtay oo koob iyo 10 sanad huruda weey war halka ka eeg wacaynka maxaa ku diiday markaad cishaha tukatid aqalkaaga inaad tagtid oo reerkaaga la wadaagtid in aad maxaan ku yiraahdaa hadii alla idmaayo sheekada iyo nolosha iyo la wadaagtid maxaa ku diiday rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam hadigiisa dhaqankiisa waxa kamida kaana yasmuru ma'a ahlihi qalilan qabla an yanam xaaskiisu la sheekaysan jiray wax yar inta aanu seexan waqti si islaantaada caruurtaada aqalkaaga xilba ka saaran مسؤوليات باكو سارن حق وقت سي نينكو إنه كده دالا على ربع مسألة داسي دتك واوين أضياشة وحادعي كرت إنه هرئ وهيدان لأن يرادا ولي خاصة قفك الضمري مركان عروركو هينين وهذا سكوع سبتين دوان أد جورستي وأديكو عاود دن أد علي جامع يوسف لفر إذا سوق يدينا كلي يد أقل كيف إذا كده حلولون يصير مشكلة دوي إن قفكو حق بولي لا شيء كيستيد كفرحيسيد لفرك عيارتيد maxaan ku idhaahdaa ka qoslisid u sheekaysid maxaan ku idhaahdaa waxa soo dhan waa muhiim laakiin dad markay wax isu doonayaan isu qoslaya oo israbaan marka kalena qofna jikadu ku jira qofna aqalka hadda meel isu yimaadana isna mobile buu wadwadaa iyaduna ama mobile bay wadwadaa ama meel ama telefoon kale ku hadlaysa sax ma waxaan leenahay waqtiga iga soo gaabtay nin walba xil baa ku saaran sida aad ka yeesho gabadha iyo ilmaha ba ilaahay aakhira kala xisaabtamaya juhdiga iyo dadaalka iyo tarbiyada wanaagsan ee dhaqanka fiican in qofku ku dadaalo waa laga maarmaan waxaad inta ku daraysaa ilaahay bariyadiisa iyo ducada ilaahay inaad ka barido weydiisato in ilaahay xaaska ku hagaajiyo in ilaahay caruurta ku hagaajiyo in ilaahay xilka kugu asturo in ilaahay ku hanuuniyo in alla ku fudaydiyo waxba gacan kuugu ma jiraan ilaahay baa gacan wax ugu jiraan arintaas waa arrin laga maarmaana astawdiicukum allah